halkani waa BBC waxaan idinka hadlaynaa mowjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka qaar Facebook iyo internetka oo cinwaankeenu uu yahay bbcsomali.com kulan wanaagsan sidaad u dhantihiin Afrikada bari saacadu waa 5 galabnimo oo gow ah doonta jimcaha ee galabta waxaan ku faaqidi doonaa muranka ka dhashay natiijooyinkii ka soo baxay imtixaanaadka dugsiyada sare ee dhawaanta la qaaday taasoo ay ka dhasheen su'aalo la xiriira nidaamka guud ee waxbarashada Soomaaliya waxaan eegi doonaa horta waa sidee manhajka waxbarashada ee Soomaaliya yaa qaabeeya manhajka muxuu yahay doorka dawladda ee manhajka iskuulaadka gaarka loo leeyahay yaa maamula ma wasaaradda mise waxooda waa u gaar macallimiinta iskuulaadka waa sidee tayadooda yaa sax imtixaanaadka shahaadiga maxaa sababa dhicitaanka ay ardaydu imtixaanaadka ku daataan maxaa ardayda Muqdisho u gaar ah afkaarta dhageystayaasha ayaa sidoo kale maqli doontaan xaasabayn caasimadda Muqdisho oo halkii la islaayada ayaa dalka ugu aqoon fiican leh inay noqoto halka ay ku dhacaan ardayda ugu tirada badan ee ku dhacay imtixaanka ay dawladdu u shaacisay imtixaanka shahaadiga ee wadanka Soomaaliya dhawaanta lagu dhawaaqay ee khilaaf ku hareeyay runtii waxay la tahay in dawladdu aad ku lahayn ama wasaaradda waxbarashadu maxaa yeelay markii imtixaanka ama waxbarashada tayadeeda sare loo qaado kaliya waxa ka gudba ardayga xariifka ah ee inta badan soo dadaalayay qodobadaasi ayaan uga sacbirsan doonaa saacada soo socota waa dooda jimcaha marka hore warkii caalamka iyo Fartuun Ismaaciil mahadsanid Catoosh koox dawladda Afghanistan ku matali doonta wadahadalada Taliban ayaa ka ambabaxay magaalada Kabul si ay u gaaraan caasimadda Qatar ee Doha halkaas oo ay uga qayb gali doonaan wadahadalo taariikhi ah wadahadalada labada dhinac ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ururka Taliban ayaa maalin ka hor sheegay in ay ka qayb gali doonaan wadahadalada ka furmi doona Doha dawladda Afghanistan ayaa dhawaan xabsiga ka sii daysay saraakiil Taliban oo dil lagu xukumay waxaana ay qayb ka ahayd heshiiskii ay gaareen labada dhinac wadahadaladana ayaa bilowday horaantii sanadkan waxaana ay horseeday in Mareykanka uu ogolaado in ciidamadiisa uu kala baxo Afghanistan weeraradaas oo ay sheegtay in ay ku bartilmaameedsato kooxo ay sheegto in ay kaga soo duuleen xadka ay la wadaagto Suuriya ugu dambeynna shirkadda maamusha markaba dhawaan shidaalku daadiyay xeebaha dalka Mauritius ayaa ballan qaaday lacag dhan $10 milyan oo laga bixin doono nadiifinta xeebaha shirkadda Mitsiwa Oscar ayaa sidoo kale sheegtay in lacagtaasi ay wax ka tari doonto nadiifinta deegaanka uu aafeeyay shidaalka markabka ka daatay warkii dunidana waa inaga inta Fartuun Ismaaciil aad baad u mahadsantahay